kastoo waxay ka tirsanaysaa waxaan ka codsanaya ilaahay dirtiina ii saamaxdo cidda anigu wax ka tirsanayna ilaahay dirtii baan u saamaxayaa. xildhibaan barkhad jaamac batuun oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland ayaa markii ugu horeysay sheegay inuu cafiyo cid kastoo wax ka sheegtay. xildhibaanka ayaa geesta kalena bulshada ka dalbaday kana codsaday inay iska cafiyaan. xildhibaan barkhad jaamac batuun ayaa hadalkan ka jeediyey dahfurka masjid cusub oo laga hirgeliyay xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa. kole baan nin mas'uul baan ahayo cidii dhow iyo cidiga fogba inta waa la isu gafayaa. cid kastoo waxay ka tirsanaysaa waxaan ka codsanaya ilaahay dirtiina ii saamaxdo cidda anigu wax ka tirsanayna ilaahay dirtii baan u saamaxayaa. waxaan jeclahay quruxda iyo qiimaha masaajidka leeyahay nadaafadiisa in la ilaaliyo. sheekh Khadarna ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro midhaha. waxaan isleeyahay rabadaanteedana waxaan u fadhiyi doonaa xalqado fara badan oo ka takharuja masaajidka oo barta culumta kala duwan ee sharciga ah. Khadaru juhdigaadna bartaa ka wad garabkaagaanu taaganahay. wixii kale baaqi noqda bulshada looga baahdana barbilowgeedanu yeelan doonaa. ilaahay subxaana wa tacaala suu khayr ku jira inuu waafajiyo dembigeenana allaha dhaafo masaajidkana allah inoo wanaajiyo. waxaan salaamayaa xogayaha guud ee xisbiga UCID oo isaguna inala jooga madasha oo martiino ah inteena kalena xaafadeenu nahay. xamse xayd wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.